sanadihii la soo dhaafay waxa isa soo tarayay marba marka ka dambeysana kor u kacayay hadalhaynta iyo iibsiga lacagaha loo yaqaano cryptocurrency-ga aragtida dhaqaale ee suuqyada dunida ayaana u muuqata in ay u jihaysatay dhinaca cryptocurrency-ga haddaba maxay yihiin lacagahan cryptocurrency-ga ee uu isticmaalkooda dunida aadka ugu soo badanaya maxay uga duwan yihiin lacagaha caadiga ah ee loo yaqaan fiat currencies-ka ee aynu hadda isticmaalno sidee loo maalgashadaa sidee dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa'iideysan karaan oo ay suuqyadaasi ugu soo beeri karaan su'aalahani iyo su'aalo kale waxa aynu hordhigi doonaa ustaad Axmed Cabdi Busuri oo loo yaqaano AJ Crypto ustaad waan ku soo dhaweynayaa marka hore بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله هذه هذا ما حسنت كعمد علينا قدر حرنت يقول سود ويسي إس آر تي في iyo magaalada Jigjigo aan runtii marti ku ahay oo si qurux badan lagu soo dhameeyay aad bay u mahadsantahay mar kale soo dhaweeyaan ku leeyahay inta aynaanu guda galin cryptocurrency waxa uu yahay iyo saameynteeda casrigan bal in yar dib noo celi adiga iyo cryptocurrency halkee ayaad iskala soo jaan qaadeen bilowgii waa su'aal aad qiimo badan marka hore aniga Axmed ahaan suuqyada financial waxaan ka soo bilaabay 2018 waxaana ka soo bilaabay forex marka forex baan bartay kadib forex baan ka trade gareynayay muddo 3 sano markaan forex ki waday ayaa markii dambe waxa jiray group signal providers oo signalada dhiibi jiray oo aan ku jiri jiray ayaa waxay bixin jireen signal ah cryptada sida bitcoin ama ethereum iyo litecoin so halkaasaan horta aniga aan ka soo galay markaan arkay signalkii aan bixinayno inuu fiican yahay suuq lacag laga sameeyo ayaan waxaan isweydiiyay waniyahow arintan ma ka faa'iideysan kartaa taa marka waxay dhacday inaan suuqa cryptada aan baaritaan ku bilaabo aan akhrin ku bilaabo aan bilaabo bal inaan fursadaha ka jiro aan ka faa'iideysto markii aan arkay oo soo dhaxgalay waxaan soo dhaxgalay dhamaadkii bullrun waxa leedahay crypto waxay leedahay 4 sanadood cycle bay leedahay oo sanad bear market ay 3 sano bull market so dhamaadkii bullrun-ka hore 2021 ayaan aniga ku soo beegmay suuqiyo si fiican u qurux badan oo wada cagaar ah oo faa'iido un la wada sameeynayo runtii aad buu qurux badneed waxaan sidii suuqan baduu sidan bay yahay Axmed maxaad si deeply ah sidaad forex ka deeply u dhaxgashay maad u sii dhaxgashid so halkaasaan horta aniga cryptocurrency albaabkaasaan ka soo galay marka aynu niraahno lacagaha cryptocurrency-ga dad badan waxay isweydiin doonaan talo lacagtaasi ma lacag warqada ahba ma birba ma qadaadiicba wadankiisa laga isticmaalaa bal lacagtani cryptocurrencies maxay tahay ustaad anaga iyo bulshada daawadayaashaaba bal noo faahfaahi so waa maxay cryptocurrency waa su'aal aad u qiimo badan way okay cryptocurrency waa lacag digital ah so sidaan aqaano lacagaha adduunka maanta laga yaqaano ee la isticmaalo waxa fiat currency waa noodkan ee hadda birta idinkoo kala haysataan ee aad tirinaysaan warqada ah waa lacaga nooda waxa loo yaqaanaa luqadda qalaad fiat currency waana lacagihii lagu soo caanamaalay adduunkan hadda jira uu ku base gareysan yahay lacagtan digitalka waxay bilaabatay safarkeedii 2009kii markii uu dhacay 2008 dhaqaale burburka adduunka ka dhacay ayaa waxaa yimid nin la yiraahdo ama group waa unknown lama yaqaan yiraahdaan ilaa hadda lama oga Satoshi Nakamoto lagu magacaabo ayaa wuxuu ikhtirac ku sameeyay wax la yiraahdo bitcoin oo si loola dagaalamo sicir bararkii dhacay waxa la isweydiinayaa suuqyada adduunka wada kacsan oo wada qurux badan maxaa dumiyay waxa dumiyay sicir barar baasho lacagahan la iska print gareynayo suuqa soo galayo taa waxay keentay dhaqaale burbur bay keentay dhaqaale burburka markuu yimid ayuu ninka wuxuu ka fikiray sidee lagu xakameyn karaa dhaqaale burburkan uu soo noqon karaa Soomaa sidee lagu xakameyn karaa sidee inflation hedge wax la yiraahdo ama sicir bararka looga hortagi karaa dan wuxuu sameeyay wax la yiraahdo 2009kii bitcoin oo ah digital currency waana meesha cryptocurrency ee ka iman doonto waa aabaha iyo hooyada cryptocurrency bitcoin waa meeshii laga aasaasay weey so isaga transaction kor isku sameeyay kadibna adduunka u soo bandhigay adduunku maalinba meel bay soo mareysay cryptada so marka cryptocurrency hadii aan waa maxay Soomaaliya u bedelno waa lacag si digital ah ku shaqeysa algorithm arqaan bay ku shaqeysaa number ku shaqeysaa lacagaha numberadaana markay la sugeeyo ayay macna sameeyaan so marka cryptocurrency waa lacag digital ah oo aan la taaban karin oo arki karin sida fiat currency oo kale laakiin numberra ku fadhida xisaabaad oo leeyahay algorithm-ka
mathematical algorithm loo yaqaano ayay ku fadhidaa xisaabaadkaas ayaa lagu shaqaystaa marka soo diri karnaa adoo halkaa fadhiyo caawo waxaan ku awoodana ku soo diray $1 milyan haddii la fiiriyo banking systemka caalamka maanta ka jira ma suuragelayso inaan 1 milyan kuu soo diro laakiin adoo halkaa fadhiya hadda 1 milyan kuu soo diri karaa daqiiqada gudahoodna ku helaysa khidmo yarna waan bixinaya so marka waa lacag runtii cajiib ah waa lacag adduunka kusoo kordhisay waxyaabo badan isu diridda fududeysay in howlo badan lagu qabsado in hoteelo lagu kiraysto hadda maraykanka waxay ka shaqaynayaan in loo aqoonsado hanti oo qofka markuu haysto hadda qadar oo kaloo haysto 5 xabo bitcoin oo qiimooda caawi yahay lacag 500,000 ka badan oo dollar inaad inta bangiga tagtid aad deen ku qaadan kartid sida asad oo kale noqotay marka oo askataas barnaamijkaas hadda la wadaa marka runtii waxaan leenahay waa adduunka cusub ay soo socdo warqadahan maanta aan isticmaalayna fiat currency-ga ah ma sii jiri doonaan adduunka dhan wuxuu u guurayaa digital currency waa tahay lacag aan muuqaal ahaan iyo sheeb ahaan u muuqan oo aan wax jira ahayn warqad ahayn birna ahayn cidda maamusha aan la aqoon sida ay u shaqayso iyo cidda gacanta ku haysana ayna bulshadu wax badan ka haysanin bal noo faahfaahay sidee ayay u shaqaysaa ustaad waa decentralized haddaan ku iri adduunkan maanta ku noolnahay waxaa maamula bangiyo hantida dowlad baa iskale bangiyaha central bank baa maamula oo ka soo saara sharciyadeeda iyo waxeeda soo daabaca markii loo baahdo hadda lacagta birta ah Central Bank of Ethiopia ayaa wuxuu sameynaya lacag cusub soo daabacaya waa lacagtan baaliyooday waa in suuqa laga saaro oo lacag cusub la keeno so laakiin tan way ka duwan tahay marka lama soo daabici karo waa la qodaa mining wax lagu sameeyaa sida dahabka loo qodo ayaa loo qodaa waxaa lagu qoraa wax la yiraahdo algorithm mathematics aan ku sheegay xisaabaadka mucaqadka ah ayaa lagu qodaa markay solve gareeyaan block bay xirayaan so marka maalinkii waxay soo saaraan 400 iyo jajab bitcoin ah iyo soo saaraan waa war xusaare 900 halving kasta waxa dhacaya half baa go'aya so sicir barar bay kula dagaalamayaan so marka lacagtan aan la taaban karin waa decentralized waana waxay qiimo maanta ku yeelatay inaan cidnaba maamulin dadkii waxay naceen oo fadhab ka taagan yihiin wax la maamulayo oo qadar intuu iska galo machine iska shido lacag soo daabacayo suuqana soo gelinayo sicir bar bay abuuraysaa khalkhal bay abuuraysaa lacagta marka lacag la daabici karana ma aha waa lacag la mayn gareynayo cidnina aan maamulin waana xiisaha ay ku leedahay waayahay mar kale waxaan ku leeyahay waa maadsan tahay marka laga hadlayo cryptocurrency kumanaan kun oo coin baa jira balse dadka qaar waxa laga yaabaa marka ay maqlaan cryptocurrency in markiiba ay dhagahooga ku soo dhacdo bitcoin maadaama ay tahay midda ugu caansan maxaa sababay in bitcoin ay noqoto waxa weeye coinka ugu caansan sidoo kale maxaa u yeelay qiimahani sidaasi u saa'idka ah okay bitcoin marka cryptocurrency laga hadlayo waa bitcoin iyo altcoins wax loo yaqaan altcoins waxa laga soo gaabiyay alternative coins coinanka aan bitcoin ahayn laakiin coinkii ugu horeeyay ee la aasaasay ee cryptocurrency-ga lagu aasaasay bitcoin buu ahaa saan ku sheegay ninkan Satoshi Nakamoto ayaa bitcoin white paper-kiisa qoray bitcoin code-kana sameeyay isagaana aasaasay markii la arkay guushii ka timid bitcoin iyo transaction-ka soo fudaaday ee tahay wax loo baahan yahay ayaa waxa soo baxay coinan badan oo kale oo laakiin lamid aanan ahayn bitcoin maxay kaga dugan yihiin iyagu waa centralized dad baa maamula dad baa create gareey waana la yaqaana hadda sida ethereum hadan soo qaato ninka leeyahay Vitalik ayaa u ah aabaha isaga sameeyay ethereum oo founder ka ah so coinankaas oo kale dad baa maamula dad baa supply-gooda gacanta ku haya laakiin bitcoin waa decentralized cidna ma maamusho maxaa qaaliyeynaya marka su'aal qiimo badan waay waxaa qaaliyeynaya qadarow maadaama waxan cid maamulaysa uusan jirin aanan la iska soo daabacan karin oo saan kuu sheeg waa la qodaa mining baa lagu sameeyaa waxay qaadanaysaa 100 sano ee soo socdo inta bitcoin ay hartay 1 milyan waxba haran u malaynayaa inay soo baxo oo yimaado suuqa yimaado so dadku waxay u arkaan marka waxan inuu asset value yahay numberkan uu yahay waa 22 milyan oo kaliya lagamana badin karo lagamana yareyn karo yes haddii ay isku waafaqaan dadka haysta bitcoin iyo minerska boqolkiiba 51 ay u codayaan in koodka la furo oo la badiyo bitcoin way dhici kartaa yaa su'aasha muhiimka ah marka dhahday maxaa qaaliyeynaya why uu bitcoin uu u noqday qiimaha maanta uu marayo isagoo santiye ka soo bilowday 2009kii
maantana wuxuu marayaa $118,000 wuxuu tegay $123,000 wuxuu noqday asadka adduunka ugu qaalisan kiilada dahabka ahayd isagaa ka qaalisan soo cajiib ma maanta kiila dahab intaan qaado khadarow bangiyada mala safri karaa oo eerbarada mala mari karaa maya suuragal maaha waa lagu qabsanaya xagee ka keenta u socda laakiin waxaan awoodaa telefoonka aan wato inaan 10 milyan ku qaatoon cidna ogeyn eeg 10 milyan baan ku iri oo cidna ku ogeyn 1 bilyan baad ku qaadanaysaa cidna kuma ogo oo dollar baan ka hadlaya marka taana maxaa fududeeyey blockchain technology iyo cryptocurrency inaan qofka wax uu doono uu samayn karo marka taasaa waxay keenaysaa qadarow inuu wixii qaaliyoobo inuu wixii macno yeesho inuu cid walbo adduunka joogto ay danaynayso in ay wax uun ka gadato bitcoin marka la kala jajabiyo waxaa la satoshis adiga khadara maanta waxaad awood u leedahay inaad maalinkii $5 oo bitcoin iibsatid waa jajabka wey marka waa fraction waxaad iibsanaysid hadda naga ejicrypto waxaan samaynaa laba walad baan samaynaa walad aan gelino $5 maalin kasto oo bitcoin ah iyo walad aan gelino $30 oo bitcoin ah waan ahnay caruurtaada u maalgeli waxaan ku dhiirigelinaa walaalaha Soomaaliyeed hadduu xitaa jeebkaaga yar yahay inaad bitcoin iibsan kartid meel hoose ka bilaabi kartid waayahay intaa waynu isla fahanay bal haddaba aan u soo dego dhanka mustaqbalka lacagahani xagee u socdaan sideese dhalinyarada Soomaaliyeed ugu soo biiri karaan oo ay uga faa'iideysan karaan suuqyadaas digitalka ah si ay dunida wax ula qaybsadaan dhalinta Soomaaliyeed fursad qaali ah yaa uga bannaan marka laga hadlo suuqyada financialka ha noqdo forex ha noqdo cryptocurrency ha noqdo stock market intaba suuqyadan online-ka qadarow kaagama baahna yaa tahay kaagama baahna shahaado noocay wadataa kaagama baahna oday hebelow shaqo igey ama inadeerow shaqo igey waa xirfad intaad baratid adiga iyo laptopkaaga aad guriga isku xiraysid waad lacag ku samaynaysid hadda aniga kula fadhiya halkan maanta SRTV dhex fadhiyo trade baan ku jiraa anoo kula fadhiyaan lacag samaynaya adduunka xagee laga helaa adoo jiifa lacag samaynaysa adoo soo jeeda lacag samaynaysa adoo danahaagi kale iyo noloshaadii kale ku foofay adoo wariye oo qadar ah oo shaqaynaya ayuu account-kaagina lacag ku socota wax la heli kara maaha sooma waa wax cajiib ah marka waa suuqyadan fursadaas ayaa dhalinta Soomaaliyeed uga bannaan hadday xirfadan ay bartaan ayna u sabraan ilaahayna tala saartaan aqoontadan ay bartaan waxaan aaminsanahay in noloshooda ku bedeli karaan weli waan ku sii soconayaa qofka raba inuu suuqyadani ku soo biiro halkee ayaa waxa weeye uu wax ka bilaabi karaa bal ustaad su'aashaasina ku soco adiga khadar inaad ku soo diyaar garoodid inaad suuqan baratid laptopkaaga soo qaadatid qalin buugaagana qaadatid cryptocurrency marka la yiraahdo dhalinyaradu ay maqlaan magacaasi iyo waxa weeye bitcoin qaarkood waxay u qaataan in suuqani si degdeg ah ama looga taanjiray maalin taanjir macnaha bal arintaasi waxa weeye bulshada u kala ifay caqabado badan waana dhibaatada ugu badan ee dhalinta Soomaaliyeed badan ee ku fashilmeen suuqyada financial marketka waxa u soo hormaray ballanqaadka beenta ah inaan ku iraaqado suuqan soo gal malaayiin lacag taalo kala iska imo YouTube iska soo dadaawo halkaasi xagga kadibna suuq lacag gali wixina ku qasaar taa qatarteeda leeda dhibkeeda leeda horaan loogu soo gubtay waana lagu guban doonaa soo aniga walaalaha Soomaaliyeed oo dhan ay daawanay waxaan dhihi lahaa wadada lacag lagu raadiyo ma wax la yiraahdo kala iska imo lacag iska samay wax ka jira male qofna wax ku kadsoomin arintaas waxaan oran lahaa suuqan eeg waxaan ogon lahaa 12 sano waxbarasho ah oo dugsi sare ah waxaan ogon lahaa 4 sano jaamacad ah inta markaan soo dhameysano hooyadii aabihii lacag ku soo bixiyeen caafimaadkaaga dharkaaga adduunkaaga la soo maamulayay oo hanti lagu soo galiyay ayaad maanta dhan waxaad raadinaysaa shaqo yar oo caato $100 $200 waana ku faraxsantahay eeg meesha u socdo meel fog waay waana ku faraxsantahay laakiin waxaad rabtaa suuq financial market oo millions iyo billions ay wareegayaan trillions ay wareegayaan oo waaweynka adduunka iskugu yimid bangiyadii weelskii institutionadii corporateski dowladihii inaad inta iska soo gashid adoon shilin garanaynin waxba garanaynin inaad lacag inta gelisaad ka samaysid adoo soo jeeda reeyonaysa marka conceptiga dhigayo 18 sano mindsetka dhigayo 18 sano inaan aqbalo waxbarasho aan ku shaqeeyo $100 $200 haddaan mar qadar su'aal ku weydiiyo
ma isu dhigantaa 18 sano waxbarasho inaan mushaarkaas u yar ku shaqaysto marka loo fiiriyo iska daa cuntadii iyo dharkii iyo caafimaadkaaga ka bixi cumriga bas aan xisaabino ma u qalantaa uma qalanto marka si loo fiiriyo xaqiiqda marka loo hadlo uma qalanto laakiin okay maxaa diidaya marka haddaan 18 sano usoo dhabar adeegay inaan mushaari noqdo oon dad u shaqeeyo timekeyga lacag ku bedelo ceebna ma aha waana sax anaa soo sameeyey qof walba uuna sameeyaa maxaa ku diidayaa inaan intaan wax barto 6 bilood sanad 2 sano suuqan siiyo nolosheeda inta kasoo hartay aan free noqdo oo hadda kuu sheegay anoo wareysanaysid ayaan lacag samaynaya anoo jiifaan lacag sameeya maxaa i keenay maxaa keenayo xirfadda aan bartay baa keenaysa so marka inaan u sabro sanad iyo labo maxaa diidaya haddaan 18 sano ogolahay oo cumrigeyga intaan soo liqay bil iyo labo qofku waa inuu wax soo bartaa absolutely waa inaad wax barataa waxbaratadana kadibna aad ogolaatid processka ogolaatid dadku ay qadarow processka way necab yihiin resultka waan jecelnahay qofku wuxuu rabaa dharka ugu qurux badan inuu xirto mobilka ugu qaalsan inaan qaadano guriga ugu qurux badan inaan ka soo kaco gaari ugu qurux badan inaan wato saacada ugu qurux badan inaan wato gabadha ugu qurux badan inaan guursado laakiin timekii juhdigii effortkii ma ogolahay iyo waddadii loo mari lahaa ma rabi intaaba anoo jiif inay imaataan rabaa ma shaqaynaysa qadarow wax dhici kara ma adduunka sidaa uma shaqeeya marka wax walba wuxuu u baahan yahay sabar wax baro kadibna aqoontii aad baratay dabaq backtesting ku samey kadibna resulta wuu imanaya su-aal kale ayaa ayaduna su-aashaasi iisii raacaysa waxay tahay su-aashaasi cripto ma u baahan tahay qofku inuu marka hore yaqaano xirfado gaara sida IT oo kale ama maaliyad oo kale soo barto mise qof kasta ayaa wax weeye baran kara cid walba hadda maxaan ku yiri CV kaaga ma baahna yaa tahay kaaga ma baahna waxay kaaga baahan tahay buugaaga qalinkaaga iyo computerkaaga I think hadalka macno weyn halka inuu ku jiro haddaad qof aad tahay taa educational backgroundkiisa aanan wax badan aadan adduunka aan soo baran suuqa waad baran kartaa as long adigu rabitaanku inaad wax barato ma kaa go-an tahay wax aan la baran karin qadaro ma jirto adduunka waxa uu adag yahay qofka haddaa ka maqashid macnaheedu waxa weeye ma tijaabin wey reality wax kasta oo adag haddii lagu celceliyo waa laga mira dhalinaya hadda derbigan hadda ani adiga maanta aan qodqodno shub kasta u yaan jibinaynaa soo ma ogid hanugu dheeraado waqti hadduu doono laakiin kii waan jibinaynaa maxaa keenayo ku noqnoqoshadan ku noqnoqonay baa keenaysa cilmigana waa lamid hadduu maanta kuga adkaado beri ku noqotid beri dambe ku noqotid beri dambe ku noqotid wuu fudaanaya waxaan tusaale kuu soo qaadi karaa quraanka kariimka markaan baranaynay ardayda dugsiilada markaan nahay tusaale aad u fiican wey macallinku suuradda haddaadan ka bixin suuradda kale ma gudbi jirtay subciska maxaa loo sameeyaa qadarow waa loo subciyaa in la practice gareeyo la xifdiyo wixii la bartay skillka waa lamid wixii waa inaad practice gareysid ku celcelisid sidaad meel uga gaartid waayahay marka maxay yihiin khaladaadka ugu badan ee dadka ku cusub ama dhalinyaradu ay ku dhacaan marka ay bilowga yihiin sidoo kale adiga laftaadu haddii aad u soo joogtay oo aad markhaati u soo ahayd markii aad ku cusbaydna ay khaladaadkan oo kale kugu soo dhaceen hal iyo laba well ani markaan cusbaa waxaa dhici karto inaan yarana sii badnaa waayo dee aniga institution sax baan ka bartay waxay soo mentorgariyey macallin suuqyadan caanka ah ay soo mentorgariyey iskuul aan ka soo bartay Lento Trade oo London ku yaala fursadaas yes dad badan ma inay helin way dhici kartaa laakiin aqoontu saxda ah markaad heshid iyo mentor sax oo macallin sax wax ku barayo runtii wadadaada way soo gaabanaysaa waayo isaga ayaa wuxuu ka faa'iideysanaysaa khibradiisa haddaan maanta aniga ku mentor gareeyo oo 8 sano khibrad aan wato dee qaladaadkeygii baan kaaga faa'iideynaya soo ma maraysid laakiin haddaad tiraahdo qadarow waan iska baxaya YouTube maan tagayaa cashiro waxaan soo daawanayaa here and there kadibna suuq intaa imadan lacag ku shubaan trade gareynayaa waad gubaysaa lacagtaas so aniga waxaan dhihi lahaa waxa ugu wanaagsan in laga fogaado u baahan caqabadaha lala kulma ka mid tahay kow horta inaa iska ilowdo wax la dhaho maalin taajir waa caqabadaha ugu badan dhalinyarada Soomaalida haysta inuu suuqa intuu soo galo 1,000 sameeyo 2,000 sameeyo 10,000 100,000 sameeyo ma shaqaynayso maalin taajir wax lacag iska dhig ka fikir suuqan intaad baratid noloshaada inta ka dhiman inaad ku maaraysid long term inaad u fikirno oo aan iska dayno khiyaaliga maalin jooga iyo beenta la soo sheegayo labo inuunan booca ku weynaanin booca ku weyn maxaa laga wadaa inaadan greedy aadan noqon yani qofka waxaa laga yaabaa intuu trade qaato oo trade-ka uu siiyo $10 $20 $30 inuu lacag yar u arko oo $100 sii raadiyo oo 30 lagala noqdo
oo isagii khasaaro marka taana inay dadka ka fogaadaan oo waxa suuqa uu ku siiya aad qaadatid oo intaa yar aad joogteysid waayo waxa yar ee la joogteeyo ayaa ka fiican waxa weyn ee hal mar la helo marka waxaan dhihi lahaa qaladaadkaas waa qaladaadka lagu dhaco dadkan badanaa ay ku dhacaan maalin kasto in qofku maalintaajir raadiyo inuu qofka booca weynaado suuq iska dhex fadhiyo oo suuqa uusan istaraatiijiyo exit uusan ka yeelanin iyo qaladaad kale ay ku dhacaan dhalinyarada Soomaaliyeed boodboodka waxaad arkaysaa maanta forex buu joogaa beri crypto joogaa beri dama stock buu joogaa istaraatiijiyad buu ka boodaya wuxuu ku leeyahay price action ma shaqaynayso ICT baan baranaya wuu sii socdaa beri market structure smart money waaba safarba meel u socda gaar sheeg war hal istaraatiiji intaad baratid kuma kareysid master garay waxaan shaqaynay male haddaad maqasho qofku leh istaraatiiji hiblaayo kama shaqayso suuqa waa qof aqoonta ku yarta mid aanan shaqaynay male laakiin adigu ma baran kartaa si sax ah marka waxaan dhihi lahaa boodboodka la dhaaf markaynu ka hadlayno coinskii ayaa ugu mustaqbal fiican ama aad dhalinyarada odhan lahayd coinska maalgashada oo waxa weeye dhexgala bal adigoo noo kala tataabanaya maadaama 50 kun oo coin ka badan la tilmaamay inay hadda jiraan maasha allah horta waa su'aal fiican dhinac marka laga fiiriyana negative ay wadataayo dee hadda waa TV waxaan ka hadlayo inaan financial advice bixiyo oo coin hebel ka fiican dhaho sax ma laakiin waxaan oran karaa haddii aan maalgashi samaynayno sida hadda cryptada soo halqaaday oo hadda daayartu aad ay u danaynayaan hadda maanta bootcampki aan qabanay corporateska aan u qabanay jigjiga runtii su'aalaha ugu badan ee weydiinay waxay ahaayeen aad waxay ula yaabeen runtii markaan soo tusnay portfolioyinka iyo waxa aan asset managementka aan ku samaynayno aad waxay ula yaabeen lacagtii arkayeen iyo waqtiga la geliyey oo 2 sano bar meelaha ah ee ganacsiyada iyaga ay ku jiraan sanadada ay ku jiraan hanti badanna intay gashay retaankana aad u yariyahay ama waxa ka soo noqday waa aad u yariyahay so ani ma jeclano coin hebel baa fiican ama stock hebel baa fiican laakiin waxaan oran karaa qofku inuu coinka ka fiiriyo dhowr qodob hinta baan bixinaya mogta ma raba si toos inaan coin hebel u dhaho laakiin qofka raba inuu coin maalgashto qodobadan ka fiiri kow xalaasha xaaraanta ilaa dad muslimiin baan nahay horta meeshan coinan badan baa yaala xalaal ah iyo kuwa badan oo xaaraan horta kow inaan fiirino xalaasha xaaraanta coinka horta xalaal hadduu noqdo ayaan u gudbaynaa qodobka labaad u gudbaysa waxaa waaye use caseka coinka mashruucan coinka uu wato mustaqbal ma ku leeyahay blockchainka dhexdiisa ilaa hanti baan raba inaan geliyo okay qodobka saddexaad maximum supply-ga coinkan mira intee leeg baa laga sameeyey waxaa laga sameeyey malaayiin waxaa laga sameeyey billions bas waxaa laga sameeyey trillion hadda waxaan ku iri su'aashaada ahayd bitcoin maxaa qiimo u yeelay waa 20 milyan baan ku iri mirihii baa yar waxa markuu miraha yar yahayna qiimo yeelanaya dimaankii baa badanaya supply-gina waa yariya so taana inaad iska fiirisid oodan coin mira trillion iska wata aad lacag iska gelin de lacag weyn buu u baahan inuu dhaqaaqo soo mana imaanayso qodobka saddexaad teamka wata coinka inaad iska baartid oo team la yaqaan ma yihiin oo dad background-kooda lagu ixtiraamo blockchain-ka ama mashaariic noocyada blockchain-ka oo kale ama crypto kale ma ka soo shaqeeyeen aad bay muhiim u tahay qodobka afraad marka teamka laga soo tago ee aad rabto in la ogaado waxa la yiraahdo road map-ka ila coin walba wuxuu wataa wax la white paper waxa ku qoran road map wadiiqa loo jeexay inuu maro oo taariikh leh hore ma u fuliyo kasoo qaad 2025 buu qadar wuxuu rabaa coin inuu maalgashto wuxuu eegayaa road mapki 20 kasoo qaad coin-ku waxaa la soo saaray 2020 2020 afar sano u dhaxayso ma afartaas sano teamkan wixii ay hore u ballan qaadeen ma fuliyeen hadday haa tahay waa team isku halayn kartid hadday may tahayna ka fogow da kuwa arday fulin kuwa soo fulinayaan ma fulinayaan qodobka afraad shanaad seed round wax la jiro project baan aasaasaya ka soo qaad aniga qadar maal qabin baan u imanaya aniga aqoontan haya lacagti ma hayo adaa lacagta adduunku soo baahay Soomaa adaa lacagta haya qadar waxaan ku oranayaa presentation ma ku sameynaya qadar mashruuciga waa kan wuxuu leeyahay mustaqbal hanti ma hayo email gali oranaysa okay Ahmed waan ku maalgelinayaa laakiin 100% igu soo wareeji mashruuca daan lacag baan u baahnaa waan ku qasbay inaan ku wareejiyo 100% baan ku siiyay lacagta baad siisay nin maal qaban kala u tagaya projectigi baan siin u bandhigaya lacag buu siinayaa waxaan ku wareejiyaa percentage haddaad aragtid marka walad lagu haysto more than 50% ama 40 ama 30% coinanka ah oo hal walad lagu hayo oonan ahayn qofkii ownerka ah
ama shirkaddii samaysay aysan ahayn cabsideeda leedahay waana sababeynaya aniga qadar wuxuu i siiyey 30% coinkii waan suuqan geynay waa la maalgeliyey marketing baan u samaynay dad badan baa iibsaday mashruucii waa lagu qancay mashruuca uu fiican yahay dan waxaa imaatay sanad kadib halkaygii milyan ee qadar aan siiyey waxay isu bedeshay 10 milyan ma daawanaya qadarow seel baan ku qabanaya ilaa ani meesha faa'iidaan u imid halkaygii milyan 9x buu ii sameeyey kuma daawanayo aniga projectigaaga iyo mustaqbalkiisa waxba igama gelin waxa iga gala waxaa weeye hantidii iga gashay ma soo ceshan karaa iyo faa'iidadeedii weliba so halkii milyan 9 milyan buu ii dhalay maxaan samaynayaa seel baan ku qabanaya so 30% waa number aad u weyn markaan seel ku qabto suuqa laga dareemaya ilaa waa number aad u weyn soo ma coinki price maxaa ku dhacaya marka hoos buu dhacaya dadki maxay bilaabayaan kalsooni darro cabsi dad badan baa iibinaya marka ani marka iibis ku bilaabo dad badan oo faa'iido ku jiro oo khasaare aan rabin ayaa igana iibinaya maxay sii xoojinayaan daadashadii coinka sii xoojinayaan waxaa dhici karta coinka inuu tago meel eber ah dib inuu soo kici waayo halkaa ku dhinto haddii marka hanti kaaga jirta qadar ka war marka dee hantidaadii waa lagu kala tegey way ku dhimanaysaa coinka inuu soo noqonin oo lagu kartaa u badanta marka haddii walad lagu haysto miro aad u badan oo 30% 40% 50% ka fogow coinka ha maalgashanin so arrimahaas aan dul istaagaan markaan coin aan maalgelinayo waayahay waxaad ka shanqadhisay in ay jiraan coinan aanan xalaal ahayn bal halkaasi su-aal baan ku raacinayaa maxay yihiin coinasha aanan xalaasha ahayn ama aad leedahay dhalinyarada coinasha ha maalgashanina ee iska daaya sida coinanka ka shaqeeya ribada dad muslimiin baan nahay coinka hadduu ribo ka shaqeeyo oo ribo lagu kala qaadanayo waa inaan ka fogaano coinan baa ka shaqeeya qamri iyo darooga iyo hoolahaas fududeeya iyagana kala fogaanaynaa waan ka fogaanaynaa coinan baa waxay ka shaqeeyaan wax loo yaqaano yield farming in la abuuro oo la badiyo iyagana waan ka fogaanaynaa so marka kuwa stakingka gala sida stakingka in coinankaaga intaad geysid bull qadar baa wuxuu ii keenayaa coinankiisa coinankii baan ka qaadaya waan kusoo shaqaysanayaa so kadibna lacagtii aan soo shaqeeyey ayaan qadar wax ka siinaya ribaa soo gasho sooma so noocaas waxa u shaqeeya inaan ka fogaanaa rabo insha allah marka aynu imaano waaqica dalkeena ama Afrika ama dalalka kale ee Soomaalidu degtaba suuragal ma tahay in mustaqbalka dhow Bitcoin suuqa si caadi wax loogu kala gato nacam waayo waxaan u leeyahay dee adduunkii dhan baab u socdaba dowladda dhan ee Mareykanka hadda dhaqaalaha adduunka ugu weyn ah ayaad arkaysaaba White House-kiba inay sector dhan u magacaabeen crypto zarlo ay u xil saareen inay crypto kali ka shaqeeyaan sidoo kale waxaan arkaynay Bitcoin Solano coinan kale inay ka dhigteen reserve currency oo madaxweynaha qalinka ku duugay waxaan arkaynay Genius Act oo isbuuc hadda aan ku jirno isagana Congress-ka iyo uu soo maray oo la soo ansixiyey ama Clarity Act sharciyadaas oo kulli crypto ah so dowladda dhameed ee adduunka maanta super power ka ahayd haddii ay leedahay crypto-ban annaga u soconna oo sharciyadeedii iyo hoolaheedii iyo shaqada ugu badan ee maanta White House ka socoto waa si loo sharciyan lahaa crypto maanta waxa lagu iibsadaa hadda Dubai tagtid hoteelada ku seexan kartaa abaad ku iibsan kartaa guryaha ku iibsan kartaa sida Bitcoin oo kale Ethereum oo kale lagu kala iibsadaa dalal badan sida China oo kale tagtid dalalka aad ku tagay teknolojiyada waxba lagu kala gataa cunta lagu cunaa intaad baxdaad Bitcoin shaah ku cabaysaa okay so marka adduunka tagay already qadar daasoodan ku leeyahay haawi marka way ka jirtaa so dalalkan marka soo koraya inay inta imaato la dhaqan geliyo wax diiday ma leeyahay waxa adduunka ka dhaco baa anagana ka dhici doona insha Allah so shaki igama jiro maalmaha ka jigjiga in Bitcoin shaah lagu cabi doono su'aashaasi waxaan raacinayaa su'aal kale oo taasi bedelkeeda hadiiba maadaama ay lacagahan Bitcoin noqdeen caqabad bangiyadii ku noqdeen hadiiba ay dawladaha talada haya lacagahan caqabad u arkaan ka soo horjeestaan mustaqbalkeedu muxuu noqonayaa sidoo kale dadkii maalgashaday lacagahoogii halkee bay u raacan doonaan haddaan ku iribo adduunka yaa maamula maanta ilaahay ka soko Mareykan baa maamula dhaqaalaha adduunka xagee laga maamula Mareykan baa laga maamula hadiiba bangiyadii Mareykankii haddii waxaan ku iri waxa loo aqoon in la rabo in hanti loo tixgeliyo oo guryo lagu qaato baawaro lagu qaato oo loan muxuu ahaa deyn lagu qaato hadiiba la rabo in la dhaqan geliyo oo dalalkii Westernka ee awoodii dhaqaalaha adduunka iyaga ila magiyada adduunka yaa maamula iyaga sharciyada u dejiya iyaga
sharciyadeeda iyaga dejiyeen baana halkan maanta dalkan Ethiopia sharciyada ku dhaqmo dhan waa sharci laga soo minguuriyey dalalka westernka waayo financial systemka iyaga maamula so haday iyagiiba ay ogol yihiin ay sharciyeynayaan yaa cidiidaysa ma malaynay jirto ugu dambeyn ustaad Busuri AJ Crypto dad badan oo kugu xidhnaa oo kugu taxnaaya halkani ka daawan doona ayaga iyo dhalinyarada kale Soomaaliyeed maxaa tala ah oo aad u dhaafaysaa dhalinyarada waxaan dhihi lahaa horta ka fogaada wax loo jiifo jiq waxaa jira abab badan oo soo baxa habeen iyo maalin oo dhalinyarada lagu dhacayo oo la leeyahay oo khadaro kaalay 100 baan geliyay 500 baan ka sameeyay 1000 baan ka sameeyay wax ka jira male waana ababka Soomaalida maalin iyo habeen ba lagu dhaco wada qolka aan joogno AJ Crypto ilaa 22 oo Soomaaliya ku jirta habeen iyo maalin waxaana loo keenaa ab dadka lagu dhacayo oo hadda daan soo soo qaato trade bot mu aha ma aqaanad maqashay 30 milyan oo dollar hanti Soomaaliyeed baa lagu dhacay qadar lacag yar ma waan habeen maalin ugu ab kale waxa jiray ilaayo 213 mu aha ma aqaan magac ulaha ma aqaan oo sagana dadka lagu dhacayo hadda ugu dambeeyay oo malaayiin lacag hanti Soomaaliyeed lagu dhacay way socotaa man istaagayso oo dhaca uu soconaya inta hadda saan ku sheegay aan jiifo jiq aan raadinayno aqoon aan rabin dadku wuxuu ka cararayaa waqtigan yar uu bixinayo ee waxbarashada ah ayaa culeys ku ah laakiin wuxuu rabaa hantidiisa inuu u dhiibo tuug oo birin lagu dhaco horta koow inay ka fogaadaan waxyaabaha iskaamka oo dhan waxyaabaha qofku dhahayo wax ii dhiibo aan ku shaqeeyo iskaga fogow suuqan waxyaabahan ku jeclaa waxa kamid ah hantidaada cidna uma baahna u dhiibtid mobilkaaga aad ku shubanaysaa adiga ku shaqaysanaya $10 samaysaya $5 samaysaya hayasin waayo qadar maanta dad awoodid inaad $5 aaw samaysid oo aad joogteen kartid 90 maalmood ee soo socdo $100 ma samayn doonta adduunka taas ku shaqeeya so waxa in la master gareeyo waqti bay qaadanaysaa sabar ha la badiyo ha loo dulqaato aqoonta ha la barto waxyaabaha scam kana ee wax ii dhiibay iyo ab hebel soo baxayna ha laga fogaado